ku eedeysan falka Budhcadbadeednimo ee ku xiran magaalada Hamburg ee dalkani Jarmalka ayaa waxa uu ka dhacay magaaladaasi Hamburg kulankani ayaa imanaya kadib markii ay baaqatay gabagabadii maxkamadda oo la filayay in xukunka maxkamaddu uu dhaco taasi oo lagu sababaynayo in mid kamid ah wiilasha Soomaalida ee 10 ah ee ku eedeysan falka Budhcadbadeednimo uu sheegay runtii erayaan looga baahnayn maxkamadda kuwaasi oo ahaa in si ula kaca ay u afduubteen markabkii Taiwan sanadii 2010 bishii Abriil 10keedii taasi oo keentay in maxkamaddu muddo bil gaadhaysa ay dib u dhacdo ururada u dooda wiilashan dhalinyarada ee heedadoodu ay ka yartahay 18 ayaa waxay qabteen kulan ballaaran oo ay taageero ugu raadinayaan shacabka sidii maxkamadda loogu qancin lahaa in wiilasha dadoodu ay ka yartahay 18 sanadood aanay mutaysan ciqaab adag Das war der eine Punkt, zu dem ich etwas sagen wollte. Der andere Punkt ist diese Diskussion hier, die Idee für diesen Abend. Wir verstehen, oder ich zumindest verstehe sehr gut. Danka kalena intii kulanku socday ayaa dadkii ka soo qayb galay aanay ahayn dhamaantood qaar taageero u muujinaya wiilasha Soomaalida ee ku eedeysan falka Budhcadbadeednimo kabtankaasi waxa uu ka mid yahay kabtanada isticmaala xeebaha dalka Soomaaliya laga soo bilaabo 1990 sida uu hadalka u dhigay isla markaana marar badan ay naftiisa khatar galiyeen kooxaha Budhcadbadeedku waxana uu soo jeediyay inaanay ahayn in la garab la siiyo cid kasta oo ku kacda falka Budhcadbadeednimo mar telefishinka caalamiga ee Hong Cable TV uu kabtanka su'aal weydiiyay ah cidda u fasaxday maritaanka xeebta dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in laga soo bilaabo 1990 aanay jirin dawlad lagala xaajooda xeebaha dalkaasi Soomaaliya kulankani ayaa aakhirkiisii waxa uu muuqday mid taageeradu uu u soo badanayo dhanka ururada u doodaya wiilasha Soomaalida ah ee iyagu ku eedeysan falka Budhcadbadeednimo lama garanayo natiijada ka soo bixi doonta kama dambaysta maxkamadaasi maalinta ay dhacdo